السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سومالي محمد كسر دواد برنامجكيني تلان برنامجكينا تلان فدقيسان لبعض مانتا waxaynu ku furfuran doonaa ama ku bilaabi doonaa silsilad fadhiya oo inuu magacdarnay mid qalinka dantaynu ka leenahay waxa weeyaan inaan ku soo bandhigno buugaagta ama qoraalada ay Soomaalidu sameysay qoraaladaasi dantaynu ka leenahay bandhigoodu waxa weeyaan inuu ka gudubno marxaladda Soomaali wax ma qortaa inuu gudubno Soomaali maxay qortaa macno intee leeg iyo mug intee leeg ay ku fadhiyaa qoraalka Soomaaliga ku qoran ama ummadda Soomaaliyeed samayso silsiladan waxaanu ku furan doonaa buugeena koowaad oo la magac baxay ama la yiraahdo qaamuus al-awwal waa eray koobe Soomaaliya Carabi isku turjumaya oo qoray Maxamuud Maxamed Xasan oo Cabdi qoraagiina caawa waxa uu ku dhashay sanadkii 1982 magaalada Dubai dalka Imaaraadka Carabta halkaas uu ku barbaaray waxna ku bartay waxbarashadii jaamacadeedna waxa ku qaatay magaalada Dimashq ee dalka Suuriya waxa uu ka bartay jaamacadda Dimashq xeerka shahaadada koowaad ama sharciga buugan aynu maanta falanqayn doonaa haddii macluumaad yar kooban ka bixino marka koowaad waxa uu ka kooban yahay 380 page 10,000 oo eray af Arbeeda 35,000 oo eray af Soomaali lagu turjumay waxa uu qoraalkiisu bilaabmay 2003 waxa uu gabagaboobay 2008 waxaana magaalada Hargeysa lagu daabacay Maaraj 2013 madbacadda Iftiin ayaanu ka soo baxay buugan maxaynu soo xulanay ama maxaa qiimo ku fadhiya oo aynu ka hadli doonaa buugan waxaynu uga hadli doonaa qadiyada afka Soomaaliga taariikhdiisa sooyaalkiisa iyo mustaqbalkiisa qadiyadaasi oo buugani ku soo kordhiyay arrimo aad u muhiim ah ta koobaad oo in afkan buugani uu markii koobaad badabaqay nidaamka la yiraahdo IBA oo hay'adda ku dhawaaqa caalamiga ee luqadaha dhawqooga lagu diiwaan geliyo kaasoo markii koobaad buuga ereyada ama dhawaaqa Soomaaliga loogu sameeyay buugana lagu soo lifaaqay waxa kale oo soo kordhiyay isku xidh afka Carabeed iyo afka Soomaaliga kaasoo damaanad qaadi kara inuu afkeenu af kale ay intaas dhaxgalaan wax badan kala faa'iideystaan waxa kale oo soo kordhiyay Soomaalida Carabeysan ama Soomaalida afka Carabeed wax ku kortay waxna ku baratay kuwaas oo numberkooda aad u sii batay sidoo kale dadka Carabeed ee Soomaalida wax ka daraasayeen raba wuxuu noqon doonaa tusaale fiican waxyaabaha kale oo buugani soo kordhiyay waxa kamid ah lifaaq ka hadlaya taariikhda afka Soomaaliga iyo deegaankiisa macnaha juqraafiyadda afka Soomaaliga ku soo noolaa waxa kale oo ka hadlaya isbarbardhig ereyada ku dhawaaqa af Carabeedka iyo af Soomaaliga oo la barbar dhigay waliba dhawaaqa caalamiga la yiraahdo IBA International Phonetics Association ba loo soo gaabiyay IBA-da waxyaabaha kale oo soo kordhiyay waxa kamid ah xarfaha aan ku jirin afkeena Soomaaliga ee ku jira afka Carabeed sida loogu dhawaaqayo Soomaali ahaan iyo xarfaha Soomaaliga ee Carabta aqoon sida loogu dhawaaqayo af Carabeed ahaan qadiyada haddii inta macluumaad ahaan ka gudbino waxaanu u gudbinaa arrinka luqadda afka Soomaaliga anigoo ku soo hal xigsanaya erey ama qoraah ku qoray aqoonyahan Jalmara oo baara taariikhda iyo luqadaha iyo dhaqanka culture-ka geeska Afrika oo magaciisa la yiraahdo Berin Harni waxa uu sheegay in afkeena Soomaaliga inuu hadda ku hadalnaa oo sidiisaasi ahaa oo lagu hadli jiray waqti hadda laga joogo 2000 oo sano qiyaastii inta taariikhda miilaadka Nabi Ciise laga joogo afkeena wuxuu ka mid yahay ama dhaqankeena wuxuu ka mid yahay marka loo eego reeraha afafka ama qaybaha loo kala qaado afafka caalamka qaybta la yiraahdo Afro-Asiatic ama afafka Afrika iyo Aasiya la isku yiraahdo afafkaasi waxa uu ka yahay qaybta la yiraahdo haduu ebeedamkeeda leeyahay Afrika uu ka sii yahay Kushit waxa loo sii qaybiyaa laba qaybood qaybta la yiraahdo East Kushit iyo West Kushit inagu waxaan nahay bariga Kushitka dadka reer bariga Kushitka kaasoo afaf badan koobsada afafkaasi waxaanu ka siinahay qaybta la yiraahdo Kushitkaasi bari oo loo kala qaybiyo Lowlands iyo Highlands dhulka buuraleyda iyo dhulka hoose waxaanu nahay Kushitka dhulka hoose inagu marka af ahaan loo qaybinayo afafka Kushitka dhulka hoose waxaanu ka nahay qaybta afafka la yiraahdo Soomaalid maaha Soomaalid la yiraahdo Soomaalidku wuxuu koobsadaa laba af oo ah Soomaaliga iyo afka Rendilaha oo aqaliyad dalka Kenya maanta ku noolaa wana afka koowaad ee ugu soo dhawaad Soomaaliga ilmaadeerka ay yihiin dhanka kale taariikh ahaan Soomaalida qoraalka afka Soomaaliga waxa la sheegaa taariikhyahanada qaarkood in waqtiyo badan farta Soomaaliga luntay macnaha inta la ikhtiraacay ay luntay laakiinse waxyaabaha loo soo dalishaday lagu cadeeyo waxa kamid ah sawirada ku yaala meelaha taariikhiga sida Lasgeedi dhulka la midka ah laakiin saadaynu ka hadalno taariikhda imika la taaban karo 8 qarni Soomaalida waxaanu isticmaalayna fartii loo oran jiray farwadaadka oo ahayd xarafka Carabiga in loo isticmaalo qoraalka Soomaaliga waxa kale oo jiray farar kale oo xilliyo dambe la ikhtiraacay sida fartii Cusmaaniyada iyo fartii Cabdiraxmaan Sheekh Muumin Sheekh Nuur oo ikhtiraacay loo bixiyay far Cabdiraxmaaniya ama fargada guursi
waxyaabaha kale oo jira waxaa ka mid ah guddidii kacaanka u saaray qoraalka afka Soomaaliga ama xulashada farta Soomaaliga in ay loo soo gudbiyay 18 farood oo 11 kamid ahaayeen kuwa hadda la ikhtiraacay macnaha kuwa la soo dheegtay aan ahayn afar kamid ay ku qornaayeen xarafka Carbeed saddex kamid inay ku qornaayeen xarafka Laatiiniga duruufaha kamid tahay madbacada iyo waxyaabaha la xiriira ayaa loo doortay xarafka Laatiiniga afka Soomaaligeenu wuxuu qaybsamaa lahjad ahaan sida si guud laba lahjadood maay iyo maxaatiri mid walbana wuxuu leeyahay dhawaaqyo kala duwan waxaanu uga gudbaynaa hal qadiyad oo muhiim ah oo ah horumarinta afka Soomaaliga muxuu u baahan yahay aqoonyahankan caaw buugiisa soo qaadanay Maxamed waxa uu soo bandhigay ikhtirac sheegaya in farta Soomaaliga la horumariyo kaasoo sheegaya in la kala calaamadeeyo xarfaha laabma la soo koobo xarfaha isku egna la kala calaamadeeyo sida inan iyo inan kuwaas oo kale iyo waxyaabaha kale uu u baahan yahay afkeena Soomaaliga horumarin waxaan uga tageynaa taladiina ku darsada comment-ka halkan iyo comment-ka Facebook-aba cidii kale in wax ka qorto rabtana waan ku soo dhaweynaynaa aad baad ugu mahadsantiin daawashada fiidiyogan kulanka ku xiga waxaan idinkaga tageynaa si ay nabadgeliyo hayloobina like iyo subscribe iyo share rasiisaan asxaabtiina sidoo kale like gareeya page-kayga Facebook si aad noola socotaan wixii soo kordha fadhiga ku xiga tala wadaag togan ayaan idinkaga tageynaa